Asxaabtayda qaaliga ah welcome kusoo dhawaada channelkeena Asim Mustafa YouTube channel galabta waxaan baranaynaa sida la isaga delete gareyo duplicate videoska YouTube channelkaaga. Haddii YouTube channelkaagu soo qoro duplicate ama rejected videoyada soo dhigtay mid ka mid ah ama mid video aad ku laba celiso sida loo xalin lahaa ama sida isaga delete gareyn lahayd. Ugu horreyn waxaad tagaysaa YouTube channelkaaga. Markaad YouTube channelkaaga tagtid halka waxaad ku qoraysaa waxaad taabanaysaa halka ku qoran yahay profile-kaaga ku saaran asxaabtayda qaaliga madaxa gaadtid waka marka ugu horeysa waxaad tagaysaa xagga waxaad ku dhufaysaa barteeda ku qoran tahay calaamadda settings-ka weeg. بعدين waxaad tagaysaa halka ku qoran tahay view additional features. intaas markuu ku soo qoro بعدين waxaad qoraysaa waxaad taabanaysaa halka ku qoran tahay video manager. markaad taabatid video manager wuxuu ka saarayaa dhammaan fiidiyoyada oo dhan marka waxaad taabanaysaa hadduu ilaahay ka dhigo halkaas aad saxaysaa halkaas baad gareynaysaa halka yar ee ka horeysa videoga dhinacan kale ma tagaysid halkaan markaad gareysid videoga waxa ku saarmay highlight. بعدين waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay actions. markaad taabatid halka actions ku qoran tahay waad soo soconaysaa waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay delete. imika waxaan u gareysiyay aafad wax ku weydiinaya permanently delete ma si permanently waad ka wada saaraysaa waad ka noqon kartaa you cannot undo this kama noqon kartid tan buu ku soo saaray markaa ka saga delete garanaysaa marka videoga saas uu ka baxay. asxaabta qaaliga aad baan jecelahay ilaawina inaad subscribe iyo like saartaan. asxaabta channelka cusub subscribe iyo like oo soo saaray videos deleted in ka sii delete gareeyay. بعدين halkan ma taabanaysaa waxaad ka noqonaysaa channelkaaga imika saas uu kaga delete gareysmay duplicated videogi. waxaan jecelahay aad uga faa'iideysan doontaan.